markaana degmada Doolow ee Soomaaliya iyo degmada kale ee isugu magac dhow yihiin ee lagu magacaabo Doolow Caddo oo iyana ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waa laba magaalo oo isu jira wax ka yar 10 kiiloomitir waxaana kala qaybiyo oo dhex mara webiga Daawo oo looga gudbo buundo isku xiriirisa magaalooyinkaasi marinkaasi waxa maalin walba ku dhex safra dameero tiro ah oo u kala gudbiya badeecadaha iyo rarka kale ee ay isdhaafsanayaan bulshooyinka labada dhinac waana gaadiidka kaliya ee labada magaalo u kala safra waxaana warbixintan gaarka ku eegaya xaaladaasi wariye Maxamed Xasan Dhalo sawaxanku waa rag u badan dhalinyaro oo toddobadii subaxnimo isugu yimi barxad bannaan oo ku taal degmada Doolow ee gobolka Gedo taas oo rarka looga rogo gawaarida xamar xamuulka ka keenta alaabta halka lagu rogayo qaarkeed waxaa laga leeyahay degmada Doolow Caddo oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida midaas oo goobtan u jirta ilaa 7 kiiloomitir waxaana adeega xamar ka yimi loogu gudbiyaa dabeero garnayto jiidaya Salim Ibrahim Maxamed ayaa ka mid ah ragga halkan ka shaqeeya aniga subaxii alseedii baan soo kacaa waxaan imaadaa halkan anoo kareetadeedii wato waxaa imaadaa meeshan gaadiidyo oo ka imaada Muqdisho rarkoodina loo wado Itoobiya halkaan ka rartaa waan wareegtaa oo buundadan maraa Doolow Itoobiya baan geeyaa rarkii Doolow Itoobiya ku soo dejiyaa Doolow Itoobiya haddana rar baradhii wax la mid ah ka soo qaadaa halkaan baan ka shaqeystaa oo 12 ciyaal baan ka biishaa degmooyinka laba Doolow oo ka kala tirsan gobolka Gedo Soomaaliya iyo Liibaan oo dowlad deegaanka waxa ay isu jiraan in ka yar 10 kiiloomitir laakiin waxa u dhaxaya webiga Daawo oo ay ku taal buundo dabeeruhu rarka la dulmara saanibna 13 sano ayuu rarka kala gudbayay buundadaas baabuurta looma ogolo inay buundada maraan sidaas darteeda ayaa anaga micnaha aan u qaadnaa aan rarka buundada u marinaa oo kareeta aan ku qaadnaa xaggaana geynaa xagga wixii ka soo qaadnana buundadan soo marinaa halkaana keenna baabuuran saarnaa ilaa xamar iyo meelahaas aadan hadda waxaan ku shaqeysan waa halka ragga ku shaqeeya gaari dameerkan degmadan waxa ay gaarayaan ilaa 100 nin waxayna leeyihiin guddi iyo gudoomiye hawlahooda la socda Cabay Cismaan Salaad oo ah gudoomiyaha gaadiidleydan ayaa iga waramay waxa ay iska kaashadaan guddiga gaadiidka ka shaqeeya waxay iska kaashadaan meesha xamaaliga ka jira ayaa horta iska kaashadaan aqbid kala hadda jirta ma ahayn laakiin gaadiid yari baa taal wixii imaadana waa wax u dhaxay oo ka wada shaqeystaan marka sidaas iyada ah meesha shaqadeeda ay tahay dameerahaas iyo xamaaliga iyo ragga oo howlwadeenka oo gudbiyayaalka bay u dhaxaysaa bas sidan ayay u qaylinayaan dabeeruhu maalintii oo dhan waana ku dhawaad 200 oo neef oo labadii kasta wada jiidayaan hal garnayto Cabdiraxmaan Nuur Xasan oo ah dhakhtar ka shaqeeya isbitaal ku yaal degmada Doolow waxa uu sheegay inay jiraan dhibaatooyin soo gaara dabeerahan inta lagu shaqeynayo waxa loo baahan dadkaas inay u turaan dameerahaas oo kan u qaado kan saaraan in waxay siinayaan oo nafaqo ahaan u heli karaan dameeruhu oo xulaan in naxariis fiican ay ka helaan qanaac badan iyo in dameerku laga ayaro jigto badan oo gaarayso oo qaarkood arkayso u isticmaalayaan tuubooyin ama geed adag si dameerku ugu sii socod badan u sii helo ama awood u yeesho inuu wuxuu qaadi karin u qaado marka turnaasho fiican baa loogu baahan yahay marka inay u turaan haduu daweyn u baahan yahay meesha ugu fiican ay dawo ka helaan ay ku daweeyaan Salim iyo ragga ay shaqo wadaagta yihiin lacagta soo gasha waxa ay ku xiran tahay hadba sida gaadiid raran Muqdisho uga yimaado qiyaastii aad marba waa si suuqa isku mid ma ahan rarka nafsadiisa isku mid ma aha rarka waxa jiro mid laba rar oo kaleeto mid saddex sida hadda oo kaleeto gareetadan oo wax ii saaran 4 rar waaye bil matalan 4 rar markay tahay 480 bir lacag ayaan ku wadaa rarka maalintii 5 jeer camal aan qaadaa 5 jeer camal aan qaadaya ilaa iyo $40 waan ka helaa intii aan joognay halka dabeeraha laga saarayo rarkan loo wado Doolow Caddo waxa aan arkaynay rag ay la socdaan wiilashooda oo aan wali qaan gaarin kuwaas oo hadda shaqada loo carbinayo uu mahadsan yahay wariye Maxamed Xasan Dhalo oo warbixintaasi soo jeedinayo welina halka naga dhageysanaysaan waa BBC